waryaada iskuman war saaka maxaa cusub oo haysan war waxaa cusub ciidamadii qaranka Soomaaliya ayaa xad beenaadkii Kenya iyo Soomaaliya u dhaxeeyay sida loogu taxay sidii waayir la xiriiriya saa loogu taxay war dalabaadka degmooyinka koonfurta Soomaaliya ka dareemay in ciidan xoog leh dhismeen ciidan xoog leh ciida iyo badiyo ciidka daafaca caadil soo cishi الله إلهي وإلهي مهدي مويدنا مغلبوانكي سوماليين يري الله ياهم يقضن يضالوا قالك على السعود من هدي بلد حواء يضالوا يضلكاس أي ويلا السوماليين عيدك عقدالك السوماليين شو وإلهي مهدي هاي هذا عيدا باساس وقاردين هايو قافمير هايو حدود يدي ضالوا يهالكاس عيدا أول بواد شوغي ما عيدا بلدكي شوغينا ما يغا بنتوق يدي اللوبة دي طلو وغاقع شواداتكو داي صدحات بوش ساحضي وارقار ما عيدا بلاد يا وحاس ودن بيسي ويلكي راس عسير إلا راس قنبون إلا هبيو قدن بايتا اسكو دحدشان الله اسكو دفاي عيدا كالدنب ايه دولة فدرالك ايا حدود الدفاع هيا الله أكبر الله إله وركاسو الله رياضة سنور رومي وارنتيس الله رياضة نار رومي رابنا ناقودر اي حانا نقرين امين waryaara hadeen ma maqasheen war waa soo dhacay war rag dareen u leh dumarkana badbaado ayaa soo dhacay muxuu yahay degmada Balanballe ayaa waxay soo saartay warqad ay ku joogsatay oo ay ku mamnuucayso inaan gabar dambe qurac dhinaciisa la marinayn hadda balaayadii kalena waa ku lamaan tahay maxay ahayd sinadii waa ku lamaan tahay nawe dareenkaas inuu sarraga kaliya ahayn dareenka ugu weyn dumarku haysta ka noqdee warqadaas warqad sax ma ahan الله إلهي النبي إلهي وسودوينها يا فكر كقبلها جيت كقرعة حق اللي جمرنا هيو وحوح قدي ما يا مبابي شرفتي جورك أولها لكن ربنا بالله وايد لغانا دق حياة بضوط غانا دعاء قوي كبريا أبهد أما كبريا والك جاري ولا صارن أنت عرفتان هاي سدي هنا قرعة حق اللي جمرها دق حياة لقوا بضوقين أرنت واجد تجنين وأنا سودوينها يا محل هذا إن جورك وحاجة ما أنت ورفر حد لعنين هيا ورفر حد لف سودا أبهي وحافر ما يشركي قرصار كسنة كيلا بعد وحن أركي قدوميه محكمة sare oo qudbadaynaya waayahe dictor qalajiina ma la cafiyo waayahe waryaay iskuma war waa maxay garsoorkad ka hadasheen waalida ma Soomaaliyadii sanadkii 1960kii xorriyada qaadatay baasaaka sanadkii labaad ba tiraahdeen garsoorkeedii baa shiray oo intii kale maxay hayeen Allah waa sida u sheegtay 30kii sano aan soo dhaafnay oo saxariirsanayd sanadkeedii labaad ayaa garsoorkii boorka iska jafay maantana meel fiican baan ku soconaa waxaana socda shirkii labaad ee garsoorka qaranka Soomaaliya saaxiibada garsoorka intaan suuxsanayn iyo 30kii sano tagay sanadkii labaad ba saaka looga hawlgalay saansaanku waa guul si wacan bay u socotaa Soomaaliya baraaruga hey wardalaha furo indhaha furo qalbiyada furo ana war farxad leh maanta idin wade hadii aad maqli jirteen garoonka Muqdisho stadium cawska laga gurtaa oo looda la daadsho waa meel suuqa weey hadaad maqli jirteen maanta waxa weeye roog cagaaran bas asoo waran melkiisa ka ahay wala maalintii ugu dambeysay koox la yiraahdo gurmaahiya iyo horseed ba halka baroori loolan ala kaga jiray waagi ugu dambeysay tolo waxaan u maleynayaa kuwa calacad marnaa arki doona ayagoo ahay lugaha isla dhacahay waryaaya war ma haysaan kaalay ana war idin haye meelaha iska turnaana soo magaaladii muddo ku caana maalaysu ku meel gaarka saaka waa bandow oo maxaa magaalada bandow loo galiyo makaroonihii Chinaha laga baqay masakadudii Soomaaliya ku faafay alla bal waxay ku hadashaa maqal taas bandow meel Allah muddo dheer buu saaray masaka toosteen waxaan idin weydiiyay anu geelanaad u aqaana waxa loogu mahmaahi jiray hashiyawrkeeda koolasha awrkara woolasha afartaba dab laga saar wayabaha seegto nin hore wuxuu yiri hebelow sidaan kuugu lisay iguma ahanbayn hawshaanise waa ka duwantahay maanta waxay maraysaa ama b Allah ilaahay Soomaalidu waxay tiraahdaa shimbire marbay dab qaaday
markiina buulkii habarteed bay ku dhajisay maamaaha kalaa waxay ahayd ninkii soo joog laga waayo soo jiifsaa laga helaa aariyey wagar war waxaa sixid u baahan ciidamada hubkii iyo dirayskii dawladda intay la fakadeen oo duurka la galeen argagax gelinaya dadkii shacabka ahaa ku argagax gelinaya weliba u goodiyaya ama u hanjabaya ciidamada dawladda Soomaaliya ay u dirtay inay xasiliyaan dalka ee difaaca iyo nabadgelyada iyo amniga Soomaaliya badbaadinta shacabkooda u taagan kuwa in laga qabto oo weliba talaabo adag laga qaado allayle taasaasi xidu baahan war heedhahay xagee weysadu iska qaban laabay ciidan hambalyeynaya ku faraxsan dawladnimadooda iyo waxqabadkooda iyo sida loo ixtiraamay ee mushaarkoodana loogu siyaadiyana waa aragna dad aad leedihiin waa ciidan hub lama baxsadeena waa kuwa meelaha ka soo jooga oo muslimkii iyo shacabkii argagax gelinaya war waxaa maqli jirnay burcad badeed kuwaani waa burcad ciidameed allayli kuwaas saxid baa u baahan yihiin ayaguna walle gabadha waa runteedii waxay u baahan yihiin tilaabo cad in laga qaado kuwa kow wariyay kuwa waxaan oran lahaa samadiidow dabin baa ku xidhan samadiidow dabin baa ku xidhan lagugu dili doono anigu waxaan kula talin lahaa shacabka reer Gado oo muddo badan ku qaylinaya dawladda hana soo gaarto waliba dhagaxa la taagnaay xuduudkooda dawladnimadooda difaacay haday dawladdu maanta soo gaartay waa inay garab istaagaan hil iyo hooba waxay isku maana tiri maskaxda waa lagu dhisaa madaxa waa lagu hagaa midigta waa lagu qabtaa mijaha waa lagu socdaa miskaha waa lagu kacaa margigu wuu caawiyaa haday kala maqan yihiin maqsuud lama gaari karo midnimaduna waa sidaas wixiina marooriyo muraad gaariya dan lana ma yeelayno ku filan